calaykum maalin wanaagsan akhyaarteeda ku xiran janalka kusoo dhawaada kooraska CMS-ka inoo socday qaybtiisii koowaad aan soo qaadanay iminka qaybta labaad oo aan ku bilaabi doono what is CMS-ka muxuu yahay anagoo muxuu ahaa saamir ahaan brief and understanding aan kusoo yani sheegay qaybta koowaad taasoo qeexaysa inaan saamir ka qaadano understanding ah CMS-ka iminka waxaa marka qaybta guud ee dhameystiran muxuu ahaa gabi ahaanba kooras gudihiisa ayaan iminka guda galaynaa marka waxaana ugu horeeyo what is CMS يعني complete theoretical understanding a content management system, often abbreviated as CMS. It's a software that helps users create, manage, and modify content on a website without the need for specialized technical knowledge. In a simpler language, a content management system is a tool that helps you build a website without needing to write all the code from scratch or even how to code at all. macnuhu af Soomaali yani Ingiriis waxaan u soo qaatay waxa waaye website-ku waxa ku xiran dadka ajnabi ah muxuu ahaa aad iyo aad muxuu ahaa si qurux badan ula socda ee ka tira badan dad Soomaali ah muxuu ahaa halka Soomaalidu badana aynan haysan technology-da waxaana la socda dad ajaanib ah muxuu ahaa program karo waa qasab in labada luqadba uu ku baxo Ingiriisi una ku baxo Soomaali imika waxaan u tarjumayaa Soomaali inuu tarjumaya marka definition-ka iyagu muxuu yahay definition-ka iyagu waxa waaye abbreviated waa erayga horta sidiisaba CMS-ka waa content sida waxay u taagan tahay content waxay u taagan tahay management external system bay u taagan tahay marka hadba dhinac markaan u kala qaadno contentiga muxuu yahay waxaan ku soo sheegay qaybta koowaad management maxay tahay management system isku qabo oo kala harayso management system waa plugins iyo wixii la controlay ayaa la dhahaa waa software kaas oo ka caawinaya in dadka userska dadka isticmaalaya ee developerska in ay ku create gareeyaan ay wax ku abuuraan muxuu ahaa ay ku manage gareeyaan wixii ay abuureen dan ay ku modify gareeyaan wixii ay muxuu ahaa ay manage gareeyeen managementiga wuxuu yani pluginska dan in loo active gareeyo la modify gareeyo contentiga website-ka ayadoona loo baahneen wax yani takhasus dhanka farsamada cilmiyeed ee muxuu ahaa website developmentiga dadka yani coding-ka qora ayadoona taa loo baahneen marka qofka uu rabo inuu full stack developer uu noqdo waa in uu ugu yaraan 15 years uu ku jiro muxuu ahaa coding inuu ku jiro waa 15 sano waa inuu ku jiro waxaan badana aan yani cashiradeeda aan soo dhaxgeliyaa taariikhooyin oo kale oo ka hadlayo muxuu ahaa waxaan qaabka ay ku bilowdeen marka anigu yani muxuu ahaa content management systemka wax taariikh ah oo ku saabsan yahay aniga ma ka hadli doono imiko qaybtayada labaad diiradda waxaan ku saarayaa definition-ka oo kaliya ah qaybta muxuu ahaa qeexitaanka inaan si fiican muxuu ahaa u qaadan dhigno si fiican loo fahmo marka full stack developer-ka dadka yani macnuhu ma ahan in ayagu qudoodu ay kaliya ay yaqaanaan muxuu ahaa web development-ga qudoodu kaliya inay yaqaanaan dad waxaa jira bila coders aan code qorin oo haddana muxuu ahaa web developers website-yada sameynaya application sameynaya mobile app sameynaya muxuu ahaa web application sameynaya muxuu ahaa user friendly website-ka caadiga sameynaya mobile apps waxyaabahaas dhan sameynaya jira marka oo aan code qoraynin haddana developers ayaa jiro caalamku hadda wuu isbedelay inkastoo dadku badana ay muxuu ahaa ay ku shaqeynayaan muxuu ahaa coding-ka inkastoo badana ay dadku aad ay u xiiseynayaan laakiin coding wuxuu u baahan yahay in sanado badan aad ku jirto oo aad la qabsato oo aad fahanto maskaxda waxa ay muxuu ahaa rabtay inay qorto gacantana isla markii ay garato ay durbawa ay code-ka saa ay u qorto macnuhu wax la xifdin karana ma ahan waa wax la qabsi iyo practical u baahan waaye maalmaha kamida dadka ajnabiga ee aan asxaabta ku nahay baraha bulshada oo aan la xiriiray waa nin muddo adiga muxuu ahaa aad u badan muxuu ahaa ku jiray muxuu ahaa coding-ka ku jiray waaye inkastoo uu aad iyo aad u yaqaano maadada PHP-ga server side platform websites-ka uu aad u yaqaano
muddo adiga 10 sano camal gaaraysa 12 sano markaasan yani su'aalaha la yaabka leh ee aan weydiiyay waxa kamid ahaa markaan koodii hor bilaaway ee ugu cusbay PhD-ga su'aalaha la yaabka leh aan weydiiyay waxa waaye niyo waxaan rabaa inaan noqdo 2 toddobaad gudaheedis ama 8 weeks ha ahaato 8 toddobaad xitaa ugu badnaato inaan ku noqdo muxuu ahaa developer dhameystiran marka waa uu la yaabay sidee ku noqonaysaa uu yiri anaga 10 years aan ku qaadan uu yiri muxuu ahaa developer dhameystiran inaad noqoto marka macnuhu content management-ga inaad tahay developer dhameystiran maaha laakiin waxaad yani waa inaad tahay waa inaad taqaanaa waa inaad wax ka taqaanaa HTML ama HTML iyo CSS basic website building waa inaad wax ka taqaanaa ama JavaScript waa inaad wax ka taqaanaa ama CSS waa inaad wax ka taqaanaa ama HTML waa inaad wax ka taqaanaa website building marka laga hadlayo because cilada dhici karta website-ka cilada ku dhici karta muxuu ahaa content-ga cilad ku dhici karta wuxuu leeyahay setting uu leeyahay qayb laga maamulo leeyahay management system uu leeyahay website-ka in qaybtaasi code ka qorto aad cilada xaliso ama in qaybtaasi muxuu ahaa ay u baahato update oo kale ay cilada update-ka inta uu socday wax ay qaldamaan in yani siday ahayd ka dhigto yani wax suurta galay oo yani ma ahan qof 2 sano 3 sano ama 4 sano ku jiray coding-ka ku jiray uu sameyn kara ma waa in qofka uu 12 years uu qaataa coding-ka marka developers ku labo dad yani code qoraya iyo kuwaan code qoraynin yani hadda content management-ga anagu diirada waxaan ku saarayno waxa waa bila code ma lahan content management-ga wax yani xirfad oo gaar ah oo farsamo ah ma u baahna wax fudeed ah ee la baranka marka simpler language-ka content management-ga waa tool-kaasoo ka caawinaya inaad dhisto website-kaasoo aadan wax code ah ama from scratch code aadan ku sameeynin scratch code waxa la dhahaa inaad code yani muxuu ahaa aad soo qorto inaad code aad soo qorto dan aad soo import garayso oo aad yani muxuu ahaa hawadu sida aad ku saarto ama inaad yani tahay team developer dadka team developers-ka ah ayaa badana isticmaala scratch-ka ayaa badana isticmaalaya marka scratch code-ka ma u baahnid inaad qortid ee aad content management website ku samaysid ma u baahnid kan uu diyaarsan yahay uu platform diyaarsan waaye adiga ka dhex sameeynaya marka wax farsamo ah ma u baahna waxaad raacaysaa oo kaliya gaarika iyo waxaad raacaysaa instruction-ka uu ku farayo iyo waxa lagaaga baahan yahay oo kaliya ayaad raacaysaa marka muxuu sameynayaa wuxuu dhisayaa website aanu wax code ah lagu qorin ayuu dhisayaa even haddii aad taqaan xitaa sida code-ka loo qoro macnuhu waxa waaye ma u sii bahnaanaysid xitaa in muxuu ahaa aad yani ku sii dahdid ma u sii bahnaanaysid adiga aad ku sii sameynaya dan muxuu ahaa waqti badan kuguma qaadanaysa dhamaystirkiisa definition-ka ayaa weli socda qaybta xigta ee partition-ka qaybta xigta ayaan u gudbay marka we are still exploring about the definition of what is content management system. Instead of building your own system for creating web pages, storing images, and other functions, the content management system handles all that basic infrastructure stuff for you, so that you can focus on more forward-facing parts of your website. I will return to that part. Instead of building your own system for creating web pages, storing images, and other functions, the content management system handles all that basic infrastructure stuff for you, so that you can focus on more forward-facing parts of your website. Soomaaliya u tarjumaya yani bedelka adigoo doorbidaya in system adiga aad leedahay ee aad ku samayso website web page aad ku samayso kaasoo kaydinaya image sawiro kaydinaya u dhameystiran qaybaha oo dhan oo functions-ka ah oo ay u dhameystiran yihiin content management-ga intaasi oo dhan isaga wato ma kaaga baahna page inaad samayso oo code aad qorto ma kaaga baahna inaad store image aad samayso database ma kaaga baahna other functions ma kaaga baahna oo ah
in yani muxuu ahaa aad soo import garayso waxaan hawada aad dib internetka hawada aad u saarto makaaga barnaamijka aad diyaarsan adiga muxuu ahaa kaliya waxa laga rabaa infrastructure staff for you uu ku yahay yani inaad focus ka saarto forward facing parties of your website kaliya in aad diyaariso qolofka website-kaagu inta uu ka kooban yahay design-ka inaad samaysato dan aad la imaado muxuu ahaa يعني infrastructure staff-ka inaad la imaado platform-ka la imaado uu ku asoo diyaarsan aad heli karto ama in aad soo iibsato team qurux badan yani qolofka markaan ka hadlay waa ogooda website-ka teamka quruxda badan ee saaran way ama in aad adiga soo diyaarsato muxuu ahaa teamka aad adiga soo diyaarsato aad sida u soo import garayso aad barto yani website-ka kii aad iibsatay ee aad barto. Still, we are in the middle of definition of various definition is exploring about what is content management system. Thus, beyond your websites, you can also find content management system for other functions like document management. Afsoomaaliya oo turjumaya sidaan hore soo sheegay casharada course-ka waxa la socda dad ajnabi ah la socda sidoo kale course-ka hore aan soo qaadanay digital ads platform-ka course-ka hore aan soo qaadanay badana dadka diiradda saaray waxay ahaayeen daawaday muxuu ahaa si private aan u hadalnay dad ajnabi ahaayeen marka Soomaalida inkastoo badana aysan ku badneen haddana luqadda waa luqadanadii ma ka tagi karno muxuu ahaa waa qasab inaan ku sii tarjunno marka laga hadlayo muxuu ahaa website-yada sidoo kale content management wuxuu leeyahay qayb kale ee shaqo ah qaybta kale ee shaqadu maxay tahay qaybta kale ee shaqadu waa like document management inaad yani management document aad samayso dokumentiyada inaad yani management aad ku samayso dokumentiyada waa kuwa aad adiga soo gelisay aad qorto inaad adiga management ku samayso document marka maqasho muxuu ahaa muxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay macluumaad aad adiga diyaariso macluumaad yani instructions ah ee aad adiga diyaariso ayuu ka kooban yahay managementiga muxuu yahay waa in adigu aad maareysaa macluumaadkii aad diyaarisay ama user risk kale ee aad bartaa macluumaadka sida loo isticmaali lahaa qaybta labaad ee content management system-ka halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa intaan qaybta maxaa lahaa saddexaad aynu ku gaari doono maalinteedu xigta waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum maalin wanaagsan. We have concluded here the 2th part of the course content management system. Stay tuned at the 30th section of our course. Thank you. Bye bye. Having a good day.